qaabka kulli ay ugu timi ka sheekaymayo waa garanaysan waa anti kasabkeedu ah xaraan weyn waxaan door biday inaanan hantidaanu ammaanteedu aysan isii raacin waxay raacaya ay yihiin camalka waxaan door biday inaan ilaahay dartii u laabto alxamdulilah hantidaas aad aragteen Holiday City waxaa u malaya inuu ka kooban yahay 16 qol hoolkii shirarka 4 meheradood iyo mudulyaashii meel badan bay soo madhay oo ay agaha soo dhigatay intii aan kole 5 sano way tahay intii hawsha aan ku jiray ma sahlanayn kole in dadku ila qaataan inaan intaa la ka tagay xataa waa la yiri quraan ku saaro waaran tahay alxamdulillah halku iyagu waxay bidayeen ninkii shalay firfircoonaayo hawshan ku dhiranaa maanta inuu yiraahdo iyadoo inta baan ka tagaya waxba ka siiya bal horta waxa ogaada bay ka aadanaya alxamdulillah way la qaateen hooyo tol walaal ehl saaxiib intuba waa soo gaabinaya waxaan ku soo gaabinaya dadka meesha hadda fadhiya aanan kala magacaabi karin oo aan wada garanayo waxaan markhaati ka dhigayaa hantidaas inaan uga tagay ilaahay dartiis hantidaas dad baa iga shaqeeyay guddi baan u waxaynay ku wareejinteeda iyo qaabkeeda guddigaasu waa guddiga xukuumadda masjid Umar bin Khattab intuu ka kooban yahay tiradiisa waxaa manaya waraaqaha ku qoran tahay maxamed caawi waraaqaas ninkiyaas guddigaas hantidaas waxaan ugu wakiilanay masjid ahaan baanu documentiga u qoray masjidka buu ku qoran yahay documentiga Umar bin Khattab qaabka loogu qoray waa guddigaas hantidaas inay maamulaan wixii fadwo ah oo shariicadu ay ogoshahay oo danaha khayrka lagu qabanayo ilaahay raali ka yahay inay ku maamulaan iyaga waxaan leeyahay مسؤولية قادين الله يدفعه dadka meesha soo qayb galay oo ehelka tolka culimada leh dhamaanteen dambigeena Allah dhaafo waxaan rabaa marka idinkoo arkaya inaan dokumentiyo markhaatiyaal ka noqotaan inaan ku wareejiyo masjidka Umar bin Khattab guddigiis oo gudoomiye u yahay Cabdinuur kan waa sabr loogi weeye guriga waa sabr loogi guriga waxaan filayaa ogaanshaha dawladda iyo codkii aan bixiyay ee qaabkii dawladda aan ku baxshayna waxaan filayaa inuu kan yahay waa isaga halkan waa nootayadii eelkii odayaashii guddigii idinku intaa ka koobnaydaan sifooyinka looga baahan yahay oo aniga uu igala wareegay dib baan ka sheegi doonaa oo ka akhrin doonaa waatan waraaqdeed maamulkii iyo dawladdii iyo markhaatigoodiina waa kuwaan wey guddigaas waxaa loo wakiishay oo ay la wareegeen hantidaas sidii loogu maamuli lahaa kitaabka munasalka iyo sunnaha nabiga عليه الصلاة والسلام wax shuruuda waxaan ku xiraa umaanaya
kuwa isagu uu leeyahay dee hantiyihii lagu lahaayo sida neek maxay nexom neek waa laga bedelay nawaako waxyaalaha internetda ma badnaba waxyaalahaas ma ahana iyagu dee inay meesha ku qoran maahane hantidaas shuruud waxaa u ah hantidaasu aniga inay iga wareegto oo ay ku wareegto la gado iyadoo meesha aniga aysan waqaf iga noqon iyadoo meesha ku taalla aniga aysan waqaf iga noqon sababtana waxaa keenay bilaadan baan ahay malakama sugayo waddankeena waa iska burbur waxaa imaan ka dhabri ka maalin hantidaas waa lahayn inaad dhacdo qoryaha soo gurto ehelkeeda dadku wixii aan markaas caqli badan ku jirin ama u muuqato hantida sidaa awgeed shuruud waxaan ka dhigay hantida in la gado oo la iibsho wixii laga baxshay markaas in wax lagu qabto ama dugsiyaha lagu dhiso wixii khayraad ah lagu qabto laakiin iyadu meesha iyada ku taalla inaysan aniga waqaf iga noqon saysan beri usoo laaban idinkuna markhaatiga waxaa ka aataan inaysan beri soo laaban karin dadkii ku soo laaban lahaa hadday kole waa dadka la dhalay la tahay way fadhiyaan qaybtood guddiga wax badan bay kala shaqeeyeen hadda hawsha aan ku wareejinaya allah barakeeyo hawshan allah u fududeeyo